xaflad lagu soo dhaweynaya xiriiryaha Koonfur Galbeed iyo Puntland Cumar Cabdiladiif Cumar Bashaash ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug. xafladani oo ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah odayaasha waxgaradka haweenka ganacsatada ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. ugu horeyntii ayaa munaasabada waxaa ka hadlay odayaashii ka soo qayb galay iyo waxgaradkii waxaana hadaladooda ka mid ahaa والورد خير الشر لما ذبح إني أنا قلبي في الجيران إني يدور أنا قلبي في الجيران خيرك يا ما يواه إيه الجنة اللي خيرك إيه الجنة كمان شرطين واحد مدين واليان أنا ما يعلم شيء ولا من كلام يقوله ويقولون رسالة ما يقولون يقولون سرية أيام مستقبل وأسرار كل الناس من أحياء الله وجعل الله أمور الدين ورسول الله ونقول تقول أن من شيء كنسة لا يمكن أن يكون كل يوم تقول أنت كاملا يقول ولا على وكان لا يقدر كامل لا يقول وكل يوم يعني لم يكن إشارة إلى هذه ويعرف الدول فصول الشارع فلتقرأ دراما ما أقول الله عليه أقول في العالم أمكن أقول إن شاء الله أقول الله تعالى لكم هل يمكن شيء الله إلى آخره إنما نقول باقي يوشكله لقمان يقول من المخاطرين وأخرى نسيرة إمام مبين وكل الدارو إن المخاطرين تقبل الله والسلام عليكم ورحمة الله munaasabada ayaa waxaa soo xiray xiriiryaha Koonfur Galbeed iyo Puntland Cumar Cabdiladiif Cumar Bashaash sidoo kale waxaan rabaa ugu horeyn aniga magaalada waxaan soo gaaray waxaan ku suganahay Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug waxaan soo jeegay shaqadeeda kasoo bilaabay caasimada dowlad goboleedka Puntland ee Garowe sidoo la sheegayba xilkan xiriiryaha Koonfur Galbeed iyo Puntland lama soo magacaabay inta ay soo magacaabay ka hor aniga dowladda Koonfur Galbeed ka sanaa agaasima guud oo wasaaradda beeraha dowladda federaalka waa ka tirsanaa laakiin markaan arkay duruufta dadka ay ku jiraan yani ku nool yihiin reer Koonfur Galbeed Puntland ku sugan baa talooyin iyo nasiiro badan kadib madaxweynaha hore Sheekh Aadan iyo madaxweynihii hore Puntland madaxweyne Maxamed Nagaas waxaan isla gaarnay in uu rabay oo siyaasadda la xasabana ayaga ee gobolkeena
ballaaran oo labada garab waxaysaa oo haddii la tuurayo heer koonfur galbeed ah heer puntland ah bal hawshii weligaa waa dadka isku celcelin jirtay si volunteer ah adoo ciidayn ramayaan si ciidaha si toos ugu magacaabo wadadasi dowladda waa qaabay tobankii October baan ka mid ahaa waqtigii madaxweyne xasan sheekh aadan shirkii dowladda galowga ka dhacay kadibna haddaan soo bilaabay December sanadkii kadib waan xafladii daafurka xafiiska waxaan ka sameynay galowga haddana waa wejigii labaad oo aan rabay inaan ku maro dhammaan gobolada Puntland sagaal gobol ee Puntland dadka reer weliga kasoo jeeda Puntland ay ku leeyihiin si aan isku soo hogeysano oo aan xaaladooda iyo waxa ay ku leeyihiin iyo duruufahooda aan usoo gaaro ilaan macluuma mana waxaan kalo dad shacabintaas le-eg oo shacabka labaad Puntland ku noola oo adiga ugu yahay canshuur bixiyaasha labaad Puntland weliba canshuurta aanladuumaninka waxaa laga yaaba dadka deegaanka inay canshuur badan ugutaan laakiin waxaan hooganahay kamida dadka koonfurgalbeed soo jeeday hadda Puntlandska dadka ugu fiican. Faysal Wadani, telefishinka caalamiga koonfur galbeed gaalkacyo.